iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay abaaro baahsani ka taagnaayeen gobolada galbeedka Somaliland isla markaana qayladhan kala duwan ka soo yeedhisay dadka reer guuraaga ah iyo kuwa goboladaasi deganba saameynta ay abaartani ku yeelatay ayaa gobolka Togdheer waxa uu ku dhawaaqay inay caws ugu deeqeen gobolada galbeedka Somaliland gudoomiyaha wasaaradda duulista gobolka Togdheer iyo ku-xigeenka barasaabka gobolka Togdheer oo ka hadlay deeqdani ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdani iyagoo ammaan u soo jeediyay ganacsatada gobolka Togdheer waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya duulis iyo hadii beedankeeda leeyahay qaybo kala liin laakiin gobolka Togdheer waxa sida horeba u maqashay lagaga deeqay 100 load oo loogu talagalay in walaalaha ku tabaalaysan gobolada galbeedka cawska oo sanadkan badankiisu ka baxay gobolka Togdheer siiba ayaa waxa gobolka Togdheer guud ahaan ama madaarka ha ahaato ama meelo kale ha ahaato ama iyadoo uu barasaabku hogaaminayo waxa loogu deeqay 100 halkan waxa taagan baabuurtii dufcadii ugu horeysay iyo tii labaad mid ahaan oo loogu talagalay gobolada sida awgeed waxaan u rajaynaynaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed halka ku tabaalaysan Ilaahna waxaan u weydiinaynaa inuu roob iyo naxariis degdeg ah siiyo kana uu noqdo mid anfacaad deeqdayadan oo wax u tarta marka hore halka waxaan ka salaamayaa cid kastoo reer Somaliland oo ka damqatay abaaraha haya gobolada galbeedka waxaan ku boorinayaa in qof waliba halkiisa iska xilqaamo waayo dad iyo duuyaba maanta baahi haysa annagu haddaanu nahay gobolkii Togdheer waxaanu halkan ku yaboonay inaanu dadku biyo waa la geeyay raashina waa la geeyay inaanu calafkii xoolaha qaadano oo aan cawskeyno oo cawska annagu aan xoolihii loo dhigo ayaanu ballan qaadnay waad aragtaan baabuurta horaantooda waa ku halkan yimi wixii ilaa berito noo soo hoydana waanu gudbinaynaa wixii noo hadhayna dub baanu mataqaanaa ka wadaynaa marka waxa weeyaan waxaan ku boorinayaa gobolada kale ee dalka in gobol waliba wuxuu kaga qayb qaadanayo abaaraha dalka ka jira inuu kaga qayb qaato dadka biyo waa la siiyaa neefka xoolaha calooshiisa ololayso qof kasta waa inuu dhibo hadday hal tahay iyo hadday sac tahay iyo hadday riya tahay iyo hadday dameero tahay caloosheeda ololaysa nin walba neefkaagu marka caloosha ololeysana qiime waxaan aad halkan uga mahadnaqayaa ganacsada reer Burco oo aanan la'aantooda hawshan aan maanta ku jiro aanan sameeyeen si kastaba ha ahaatee deeqdani cawska ee gobolka Togdheer ugu deeqeen deegaanada abaartu saameysay ee galbeedka Somaliland ayaa ah mid qayb ka deeqaha kala duwan ee loogu deeqayo gobolada galbeedka Somaliland oo abaar baahsani saameysay Maxamed Farax Bile Maxamed Shiine muuqbaahiyaha Kalsan TV Burco.